iyadoo dhawaan jaaliyadda Somaliland ee Norway ay ku yaboohday lacag dhan 1,500,000 oo dollar inay kaga qayb galayaan dhismaha wadada Ceergaaba iyo Burco ayaa qurbo joogga Somaliland ee dalkani waxay sheen kulan daba socday dhawaaqa hore uga soo yeedhay ee ku saabsanaa ka qaybgalka qaranka jidka shirkan oo ay ku kulmeen xubno ka socday qaybaha kala duwan ee jaaliyaddu waxa lagaga wada hadlay sidii loo gudageli lahaa hawsha loona bilaabi lahaa ururinta qaranka lacageed ee ay hore u ballan qaadeen kulankaas waxa kale oo la isku soo qaaday ama lagu falanqeeyay hanaanka ugu fudud ee loo mari karo fulinta hawsha isla markaana loo diiwaan gelin karo dadka loona abuuri karo ila kale oo lagu raadin karo dhaqaale gabagabadii kulanka waxa lagaga dhawaaqay dhismaha guddi ka kooban 15 xubnood oo loo xil saaray maamulka hawsha qaran ururinta waxaana xulista xubnaha guddiga loo xil saaray wakiilka Somaliland ee Norway gudoomiyaha guurtida jaaliyadda iyo hoggaanka jaaliyadda Somaliland ee Norway howlwadeenada TV-ga qaranka Muuse Jaambiir iyo Maxamed Jaamadiif waa ku mahadsantiina hawshan nagala qayb gasheen ee ku saabsanay shirkan ee ku saabsanay wadadii Ceergaabo mashruucii aynu qaadanay waftigii inoo yimi 2 week hor ee hogaaminayay wasiir Cabdaan arrinkaa waxaynu qaadanay milyan iyo badh lacag ah iyadoo tirada Norway ku nool ee reer Somaliland ay aad u yar yihiin oo 10,000 qof ay ka hooseeyaan haddana waxaynu qaadanay lacag 10 milyan iyo 500,000 oo dollar tii ayaa shirkani daba socday oo uu soo qaban qaabiyay safiirka uu carabka ku dhuftay arrintu waa sidaa uu sheegay weeye 15 guddiga ah ayaanu u diyaarinay talagalkeeguna waxa weeyaan in ay ku soo wareegaan waddanka Norway oo dhan haddaba intii halkan naga daawanaysa ama naga dhageysanaysa khaasatan reer Norway hawshu waa shiri guddi lagu sameeyay guddidaas oo hawsha qaran ururinta iyo maamulkiisaba gudageli doonta waxaan filayaa inay maanta guul shirkani ku soo dhamaaday waxa halka looga sii socdaa waxa weeyaan sidii loo hawlgeli lahaa waxaan nimanka jecelahay inaan ku rajo weynahay inaanu ku guuleysano dadkana waxaanu reer Somaliland jaaliyadda Somaliland reer Norwayna aanu ka filaynaa in hawsha xil weyn ay guddida sidii ay ula shaqeyn lahaayeen ay iska saaraan in hawshaasina waa hawl culus oo inoo ah in maxay imtixaan inaynu ka gudubno oo aynu caqabada inaynu inagu wax qabsan karno waxaan farayaa dadweynaha ka qayb qaadanaya reer Norway horta waa sadaqa jaariya sida Cabdi sheegay waxa way adduunyada Japan ee waxba ma qaban iyaga wax qabsaday Norway aanu joogno iyaga qabsaday inaynu isku tashano inagu oo wadooyinkeeno dhan dhisno Ceergaaba ha ahaato Burco dadweynaha ha ahaato ee wadada cad Djibouti ha ahaato ilaa Boorama meel walba inaynu dhisano wadooyinka jiro dhan inaynu dhisano tanna kow ka ahaato wadada Ceergaaba waa runtii muhiima Ceergaaba dhulka way ka fog tahay aad baan u taageersan in la dhiso wadada Ceergaaba jaalid ahaan iyo ummad ahaan labaadka waxaan u mahadnaqayaa TV-ga qaranka howlwadeenada TV-ga qaranka oo noo suura geliyay inaan shirkan noo qabsoomo gacan weyn naga siiyay aad baan ugu mahadnaqayaa Maxamed Jaamadiif iyo Muuse Jaambiir waad mahadsantihiin baan leeyahay inta haddaan dhaafo shirka waxaanu ku dhamaynay guddi 15 xubnood ka kooban waa guddi farsamo iyaga hawshooda si gudagelaya iyaga shirarkooda qabsanaya annaguna wixii odayaal ahaan aanu ku taageeri karo ayaanu ku taageeraynaa reer Somaliland waxaan leeyahay dhammaan waa inaynu fadhiga ka kacnaa waa inaynu dalkeena u kacnaa waa inaynu dhisanaa cidna waa inaan isku halayn guddigan loo xil saaray baadidoonka yabohdii lacageed ee jaaliyadda Norway hore u ballan qaaday waxay samayn doonaan guddi hoosaadyo la shaqeeya oo ay ka dhisi doonaan gobolada kale ee dalka Norway ka kooban yahay Muuse Jaambiir iyo Maxamed Jaamadiif TV-ga qaranka Oslo Norway